Assalaamu calaykum. Haddii uu xayawaankaaga rabaayada ahi hadli lahaa, muxuu kugu oran lahaa waad is leedahay? Sida, waryaa cuntona sii, waa maxay kanaalka aad daawanayso, iyo wixii la mid ah. Balse waxaa jira hal xayawaan aad moodo inuu si fiican u fahmay una bartay farsamada hadalka dadka. Haa, waa runtii, waxaan ka hadlayaa shimbirka Soomaalidu u taqaano baqbaqaaqa. Malaha waan buunbuuninayaa markaan dhahayo shimbirahan midabada quruxda badan leh ayaa afkeena bartay. Waxaan ula jeedaa maahan sida inaad ula fariisan karto koob kafee ah oo aad arrimaha siyaasadda kala hadli karto baqbaqaaqaaga. Inta badanse waxay ku egyihiin ku celcelinta erayo gaagaaban ama mararka qaarkood xitaa jumlado ama weero. Laakiin anaga bani aadamka ah waxaan leenahay xarkaha codka, ilko, carab iyo bishimo si aan u samayno hadalka. Hase yeeshee asxaabteena baalasha leh inta badan ma lahan. Haddaba sidee bay ugu suurto gashaa inayna canjilaan ama ay u hadlaan? Si looga jawaabo su'aashan, aan marka hore isbarbar dhigno sida saxda ah ee dadka iyo shimbiraha ay u soo saaraan dhawaaqyada. Asal ahaan qaab dhismeedka loo isticmaalo hadalka waa sanbabada, neef-mareenka iyo cunaha. Markaad neefsatid kadib, sanbabadu waxay hawada ku riixaan hawo-mareenka, kadibna waxay sii dhex martaa sanduuqa codka. Tani waxay keenaysaa in xadhkaha codku gariiraan oo ay soo saaraan dhawaaqyo kala gedisan. Sidoo kale waxaan inta badan u adeegsanaa afkeena qaabaynta dhawaaqyada erayada kala duwan. Shimbiraha dhanka kale ma lahan xarkaha codka. Sanduuqa codkooda waxaa loo yaqaan syrinx oo wuxuu ku yaalaa inta u dhaxaysa hawo-mareenka iyo sanbabada. Syrinx waa kiish godan oo leh derbiyo jilicsan. Iyaga oo xakameynaya muruqyada syrinx, shimbiraha ayaa soo saari kara oo qaabayn kara dhawaaqyada. Dhinac kasta oo ka mid ah syrinx-ku wuxuu u shaqayn karaa si ka madax bannaan dhanka kale. Waana sababta ay shimbiraha u soo saari karaan laba cod hal mar. Dadku sidoo kale way samayn karaan, laakiin waxaad u dhawaaqaysaa sida qof da' ah oo kale. Waxay sidoo kale ka neefsan karaan hal qol iyagoo si joogto ah uga heesaya qaybta kale. Haddaba daawade ma hadli kartaa adiga oo neefsanaya hal mar? Hagaag, dhab ahaantii maya, ma awoodid. Laakiin waad isku dayi kartaa oo tijaabin kartaa haddii aad rabto. Si kastaba ha noqotee, syrinx marka lagu daro xoogaa dhaqdhaqaaq afuufid ah wuxuu u oggolaanayaa shimbiraha inay abuuraan ama ku daydaan dhawaaqyada. Laakiin ma waxay ka dhigan tahay in shimbiraha oo dhammi u hadli karaan sida aadanaha oo kale? Maya, runtii maya. Baqbaqaaqyadu way ka duwan yihiin shimbiraha kale maxaa yeelay waxay leeyihiin carab aad u dhumuc weyn. Si ka duwan shimbiraha kale, waxay yaqaanaan sida loogu isticmaalo qaabaynta dhawaaqa. Laakiin waxa ugu muhiimsan ee u oggolaanaya baqbaqaaqyada inay aad ugu fiican yihiin ku dayashada waa habka maskaxdooda loo qaabeeyey. Sida laga soo xigtay Dr. Eric Jarvis, gobolka maskaxda ee muhiimka ah ee xakameeya muruqyada si loogu dhawaaqo waa maskaxda hore. Cilmi baaristiisii 2004, Jarvis wuxuu ku sharaxay gobol ka tirsan maskaxda hore oo si toos ah ugu xidhan muruqyada codka ee bani aadamka iyo baqbaqaaqaba. Iyaga oo kaashanaya wareegyadaas maskaxda, baqbaqaaqyadu waxay bartaan dhawaaqyo cusub, kadibna waxay xakameeyaan muruqyadooda codka si ay u soo saaraan dhawaaqyadii ay barteen. Xayawaanka aan ku fiicnayn barashada codku ma laha wareegga maskaxda hore. Dr. Jarvis wuxuu kaloo bartay tiro ka badan 50 hiddo-wadayaal, wuxuuna ka helay qaab isku mid ah waxqabadka xarumaha xakameynta hadalka ee dhowr bartayaal cod ah oo ay ku jiraan bani aadamka, baqbaqaaqa iyo shimbiraha afka qalaad lagu yiraahdo songbirds iyo hummingbirds. Taas macnaheedu waa in aadanaha iyo noocyadan shimbiraha ah ay adeegsadaan hiddo-wadayaal isku mid ah si ay ugu hadlaan una heesaan. Laakiin taasi maahan waxa kaliya ee aan la wadaagno baqbaqaaqa. Sida iyada oo kale, shimbirahan ayaa runtii ah xayawaan bulsheed leh rabitaan dabiici ah oo ay ku wada xiriiraan. Duurjoogta waxay abuuraan xiriiro adag oo midba midka kale ah. Baqbaqaaqyadu si kastaba ha noqotee waxay isku dayaan inay la falgalaan bani aadamka maadaama aysan haysan qof noocooda ah oo ay la hadlaan. Sidaa darteed, haddii aad leedahay baqbaqaaq, waxaad noqonaysaa xubin ka mid ah kooxdooda. Waxay wax ka bartaan deegaankooda, waxayna bilaabaan inay ku daydaan milkiilayaashooda
taas oo aan u fududayn sida ay u muuqato. Baqbaqaaqyadu waxay inta badan la halgamaan dhawaaqyada shibanayaasha dhawaaqa, kuwaas oo ah dhawaaqyo aynu samayno iyada oo la joojinayo socodka hawada bishimaheena, sida xarafka B ama B. Maadaama aanay baqbaqaaqyadu lahayn bishimo, taa beddelkeeda waxay adeegsadaan muruqyada neef-mareenkooda si ay neeftooda ugu hakiyaan halkaa kadibna hal mar u soo wada daayaan. Haddaba baqbaqaaqa ugu caansan ee hadalka aadanaha bartay wuxuu ahaa Alex. Dr. Erin Berberg waxay ka heshay baqbaqaaq midab cawl ah leh oo laga keenay qaaradda Afrika, bakhaarka xayawaanada lagu xanaaneeyo ee Chicago sanadkii 1977. Waxayna go'aansatay inay tijaabiso awooddiisa waxbarasho. Waxay tababaraysay ku dhowaad 30 sano. Runtii waxay ahayd maclimad wanaagsan. Alex wuxuu bartay qiyaastii 150 eray. Wuxuu awood u yeeshay kala saaridda midabada iyo qaababka iyo tirinta isaga oo adeegsanaya lambaro yaryar. Waxa kaloo intaa dheer, kuma celcelin jirin oo keliya erayada, balse wuxuu u muuqday inuu fahmay macnahooda. Alex wuxuu adeegsaday weero ay ka mid yihiin waan ku jeclahay iyo waan ka xumahay. Si aan kala sooc lahayn uma adeegsan jirin, wuxuuse adeegsan jiray waqtiga loo baahan yahay iyo qaabka saxda ah. Mar walba uu shimbirku u baahdo shay sida cunto ama daawo, ma uusan qanci jirin ilaa la siiyo wixii uu doonayay. Shimbirku caqli badana. Xirfadiisa luuqadeed ee cajiibka ah awgeed, Alex wuxuu noqday qof caan ka ah TV-ga, isaga oo ka soo muuqday qaar ka mid ah barnaamijyada isla markaana ka helaya hadiyado taageerayaashiisa. Laakiin baqbaqaaqyadu maahan xayawaanka kaliya ee dadka kaga yaabin kara xirfadahooda hadalka.